maleeshiyad hubeysan oo ka soo jeeda dhinaca degmada Shilaabo ee gobolka Qorraxay ayaa dil iyo afduub waxay ka geysteen deegaan lagu magacaabo Qurac Cashir oo ka tirsan santarka Laasacaanood ee degmada Shilaabo ee gobolka Qorraxay ee dowlad deegaanka Soomaalida. maleeshiyadkani waxa ay wararku sheegayaan in halkaasi nin ay ka afduubteen xoolo dhaqato ah sidoo kalena mid kale ay ku dileen. waxaana dilkaani uu daba socdaa iyo afduubkaani dilal hore kaga dhacay deegaanada hoos yimaada degmada Shilaabo ee gobolka Qorraxay ee dowlad deegaanka Soomaalida si gaar ah deegaanada ka tirsan santarka Laasacaanood. sidoo kale dilkaani ayaa imaanaya iyadoo 4 habeen ka hor isa deegaan lagu magacaabo Fadhi Garaadle oo ka tirsan santarka Laasacaanood ay maleeshiyad hubeysan oo ka soo jeeda dhinaca degmada Shilaabo ay ku dileen nin xoolo dhaqato ah. waxaana dilkaasi xigay dil 3 habeen ka hor ka dhacay isla deegaanka Fadhi Garaadle oo ka tirsan santarka Laasacaanood kaasi uu ahaa madaxa nabadgelyada ee santarka Laasacaanood waxaana lagu magacaab jiray Allah u naxariistay marxuumkaasi Galad Sango. dilkaasi waxa geystay ciidanka liyu booliiska ee dowlad deegaanka Soomaalida ilaa ay haatana war kama soo saarin dhinaca dowlad deegaanku dilkaasi ay geysteen ciidanka liyu booliiska waxaana gebi ahaanba ciidankaasi ay ka bixeen goobihii ay ku sugnaayeen oo ay ku lahaayeen saldhigyada. dadka shacabka ayaa banaanbax ay dilkaasi kaga soo horjeedaan waxa ay ku dhigeen santarka Laasacaanood ayagoo gebi ahaanba ka soo horjeeda dilkaasi ciidanka liyu booliiska ay u geysteen madaxa nabadgelyada ee santarka Laasacaanood ee dowlad deegaanka Soomaalida. dilalkani iyo colaadani waxay soo cusboonaanaysaa ayadoo dadka maleeshiyadka ee bilooyin ka hor ay halkaasi ku kala qaateen miga gaaraya 1,000 halaad oo labada dhinac ay kala qaateen waxaana nabadaasi garwadeen ka ahaa dowlad deegaanka Soomaalida. hase ahaatee iminka mar kale ay soo cusboonaatay colaadu ayadoo laga cabsi qabo in dilalku haatan ay ka sii farabataan inta ay ku og yihiin. mana jiro ilaa iyo waqti xaadirkan wax war oo ka soo baxay dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida oo ay kaga hadlayaan dilalka iyo afduubka maanta ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada Shilaabo ee gobolka Qorraxay ee dowlad deegaanka Soomaalida kana mid ah deegaanada dhaca santarka Laasacaanood. lama oga tilaabada ay qaadi karaan dhinaca dowlad deegaanku ay kaga jawaabi karaan falalka amni darro ee ka soo cusboonaanaya deegaanada ku tirsan santarka Laasacaanood ee degmada Shilaabo ee gobolka Qorraxay ee dowlad deegaanka Soomaalida. waxaana laga cabsi qabaa arrintu inay faraha ay ka sii baxdo maadaama dadka loo geystay dilalkaasi ay yihiin dad xoolo dhaqato oo waxba aan galabsan. waxaana dilalkaani ay dhacayaan iyadoo lagu guda jiro 10kii dhexe ee bisha barakeysan ee Ramadaan